بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دوبي ميديو إيسيدو كلا برت فيسبوك ام دوبي. مسؤولية نصارى سيدا أي تهي إن أن أقاضى نواي تبرتوا وهالكذا دي تبرتوا نوقعبته وهالكذا لكن إن شاء الله أنت أنقبكرنا آدي أبدا. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan degdeg ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir iskugu yeeray isla markaasina kaga hadleen xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalata daadadka isla markaasina gurmad degdeg ah sidii loogu sameeyay lahaa bulshada ay saameysay. hadalkii madaxweynaha waxyaabaha ku soo hadal qaaday iyo sidoo uu hadlay warbixin aanu ka diyaarinay ayaan idin soo gudbin doonaa. daadad ku rogmaday magaalada Beledweyne ee fatahaada webiga Shabeelle oo sameeyay kaasi oo sababay inay dad ay ku geeriyoodaan isla markaasina ilaa 3 ruux midadkooda qaarkood la helay qaar la weysan yihiin. warbixintaasina u diyaar garoob. waxaan raraynaa sidaad aragtaan diyaaradaas oo lagu rarayo maanta timir iyo raashin. diyaaraddan waxay ku socotaa maamul goboleedka Jubbaland kaas ahaan Doolow. hay'adda maareynta musiibooyinka oo dadkii fatahaada ay saameysay ee gobolkaasi gaday maamulka Jubbaland maanta diyaarad Doolow u diray isla markaasina loogu talagalay in ay gargaarto dadka ay saameeyeen isla markaasina warbixin ayaanu ka diyaarinay. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay mudeysay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya dhageysi ka dhan dacwad loo haysto ee musuqmaasuq la xiriiro. warbixintaasina waa idin soo gudbin doonaa. gurmud degan aan indiro fadaan bahol biyosha dad dhamaayay alxamdulillah alshukrillah afar baaran niishani afartaas baaran caawidi may bana fadaan bahol horta inni atan talang la gaad shalmay geerad sidiido yaalan inta lagu baadi kulay dhamaantan isloogaynin maylaha ku gobaday boolibiintii Allah ku gobaday. shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne oo u mahad celiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gurmadkii ee u sameeyeen daadadkii ku rogmaday halkaasi fatahaada ee roobabkii ka dhashay oo ugu mahad celiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaasi gurmad ugu sameeyay dad shacab oo biyaha ku dhex jiray. u diyaar garooba qodobadaasi oo dhameystiran anigoo Mustafa Maxamed halka kaga soo jeedinayo balse haday tahay markii kugu horeysay aan dul imaadid channelkeena ee Dobiya Media subscribe noo saarin fadlan calaamada gudaha subscribe taabgan beelka farsiya macaamiil joogto noqon sidoo kale barta Facebook ee MDB follow hadana soo dhihin fadlan follow soo da video like noo saar asxaabtaada u sii share gare aragtidaada commentiga noogu soo gudbi mahadsanid. halkani waa buundada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. daadadkii ka dhashay fatahaada webiga Shabeelle uu sameeyay ayaa maanta sii korortay ayadoona ay ku fatahay maanta webiga xaafado dhowr ah isla markaasina dadkii yaraa ee ku sugnaa halkaasi ay ka barakaceen. waxaana gebi ahaanba ay naqatay xaafadaha kala duwan sida Kooshin, Xaawataako iyo xaafado kale in ay biyaha ku fatahaan dhammaan goobaha kala duwan ee xaafadahaasi ka kooban tahay. waxaana wararku laga soo warinayaa in ay tahay mid sii kordhayo webiga fatahaada oo sameynayo isla markaasina saameyn xoogan ay yeelatay. fatahaada ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhalatay in ay ku geeriyoodaan ilaa iyo 3 ruux waxaana kuwaasi ay ahaayeen dad dhalinyaro ah halka xaafadda ee Xaawataako oo ku qaaday wiil isla markaasina daadadka ee webigaasi la tageen. sidoo kalena la magalay xirada askari ka tirsan ciidanka asluubta oo halkaasi gudaha intuu u galay ee ku dhigtay koronto isla markaasina daadadkii ay sii qaadeen. halka nin kale oo dhalinyaro ah gurigiisa oo daadadkaasi loogu barakacay oo damcay inuu alaab ka soo bixiyo daadadkii xooganaan ee buundada agteeda ka qaadeen isla markaasina meedkiisa ay baadigoobayeen dad badan oo reer Beledweyne ah.
balse waxaa lagu guulaystay 2 ka mid ah in la helo meydadkooda, waxaana ay kala ahaayeen ninkii korontada qabatay iyo wiil kale oo dhalinyaro ah. ilaa iyo iminka waxaa tahay beledweyne dadka gaar ahaan maamulka iyo sidoo kale shacab ee ku jiraan howsha ku aadan baadigoobka ee qofkaasi muwaadinka ah ee webiga dadkiisa la tagay. xaalad daran ayaa laga soo warinayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan, waxayna noqonaysaa tan abid tan ugu weyneed marka loo fiiriyo 1981 fatahaad uu sameeyay webiga mid ka ballaaran, maadaama uu ku fatahay xaafado dhowr ah aan hore loogu baranin. dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan degdeg wuxuu isku yeeray ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada, iyadoo kulankaasi goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir. madaxweynaha ayaa kulankaasi aan caadiga ahayn shir gudoominaya, waxaana diiradda loogu saaray sidii gurmad degdeg ah loo sameyn lahaa dadka ay saameysay fatahaadaha roobabka ee deerta ee ka dhalatay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed mas'uuliyad ay u hayaan isla markaasina waajib ay tahay in loo gargaaro, isagoona sidoo kale sheegay dadka inuu u mahad celinayo hay'adda Sodma sida dadaalka muuqata ee qaadanayso. dhanka kalena wuxuu u baaqay bulshada inay qaataan wacyigelinta ku aadan inay ka fogaadaan meelaha biyaha ee khataraha ka dhalan karto. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yiri mas'uuliyadana saaran sida ay tahay in aan u qaadano waay. tabartu waa halkeeda, haddii tabartu nagu gaabato waa halkeeda, laakiin insha allahu inta aan qaban karnaa aad iyo aad u badan marka hawshaas loo wada istaago. muhiimadda golaha wasiirada maanta ay leeyihiin mideeda ugu horeyso waa midaas samata bixinta nafta Soomaali qofka ama nolosha qofka Soomaaliga. bilowgii fatahaada ayaan ku jirnay hay'adda Sodma ee maareynta masiibooyinka qaranka ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxay ka dirtay gargaar gurmad loogu talagalay dadka ay saameeyeen. gurmadkaasi oo ay sheegeen inuu ka kooban yahay timir iyo raashin, isla markaasina hay'adda ay sheegtay in ay u dirayso dolow. hay'adda ayaa waxay sheegtayna sidoo kale inay tahay daadadka roobabka ka dhashay inay yihiin kuwo aad khasaaro badan dad shacaba ay u geysteen. inta qiyaasta xogta ay aruuriyeen 1 milyan oo dad Soomaaliyeed ay ku qiyaaseen. marxaladaha ay ku sugan yihiin shacabkeega Soomaaliyeed ayaa maanta bartaan waxaan u taagannahay in aan daabulno simirtaas iyo raashinkaas. mar kasta annaga haddii aan nahay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka waa ay naga go'an tahay shacabkeega Soomaaliyeed marxalad kasta ay ku jiraan inaan u gargaarno oo waxaan hayno aan ugu gargaarno. si aad la wada socotaan waddanka waxa harqiyay biyo, dadka barakacay oo ay saameeyeen biyahaasi ilaa hadda qiyaastaan hayno 1 milyan oo qof kor waa u dhaafeen. waad dareemi kartaa dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed oo gurmad u sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaada roobabkii deerta ahaa, isla markaasina dadkaasi ee roobabkii ku jiray ee gawaari u geeyeen isla markaasina ka daabuleen. waxaana arintaasi ka dhalatay in shacabka ee mahadnaq xoogan u sameeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gurmadka u soo fidiyay. waa kuwaana qaar ka mid ah dadka ee saameynta ee ku yeelatay roobabkaasi oo gurmadka helay, isla markaasina ugu mahad celinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. xaafadda Shariif Gacmeed degna bohol buuntada meele inuu noo suubiyo gurmad degdeg ah helnay hadda ciidamada gurmad degdeg ah helnay baawrana ninshaani walnay dhiig biyahay idoo lanki dhiiga ka jaro idis iyo awlaadis dhiiga ka jarto lagu dhiiga biyahay jidka dadka ku gudbiyahay ini buuntada degna inka saaro fadana dawladda ninka maylaha goboday boolibiintii Allah gobodi ilaahay badbaadi hadda may bafadaanahay inay boolagnin. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shaacisay in dhageysiga galdacwadeedka dad mas'uuliyiin oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ee dhageysigooda koobaad maxkamadda ay qaban doonto.
ayadoona sheegtay maalinta khamiista ah in ay qaban doonto dhageysiga galdacwadeed mas-uuliyiin ay ka mid yihiin hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidoo kale kuwo kale ee horey loogu eedeeyey xatooyo dadweyne iyo wax isdabamareyn musuqmaasuq la xiriiro, kuwaasi oo sheegtay in dhageysigooda ay qaban doonto maalinta khamiista ah, waxayna xubnahaasi ay gaarayaan ilaa iyo 15 xubnood, isla markaasina qaarkood horey dalka uga baxsadeen. waxaana ay sheegtay maxkamadda in dhageysigaasi ee xubnaha ay kale noqon doonaan kuwa xigi doono. guud ahaan intaasi ayaan kusoo afmeerayaa tan iyo mar kalena intaan kulmi doono waxaa idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo kulan kale oo xiiso leh.